السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام saaxiibayaal waxaa jirta qiso aan meel ka akhriyo oo run ahaantii aad ii soo jiidatay idinkana aan jeclaysin inaan idinla wadaago waxaana ay u dhacaysa sida tan waxaa jira nin boqor ah ninkaas wuxuu lahaa wasiiro marka maalin maalmaha ka mid ayaa waxa uu wacay 3 ka mid ah wasiiradiisii kadibna wuxuu ku yiri mid walba waxaad qaadataan 3daas jawaan waxaana aad aadaan beerta boqortooyada waxaana aad ii soo gurtaan miro aad u macaan sida cambe moos liin iyo wixii lamid ah marka waxaa kaloo intaas uu raaciyay wuxuu ku yiri hawshan mid walba idinka mid ah isaga ayaa qabanaya yacni cid kale uma xil saaray ama cid kale uma diri karo way la yaabeen waayo wasiirada shaqadoodu ma ahayn inay howlaha ama amarada uu boqorku bixiyay iyaga la fahantooda fuliyaan laakiin waxaa jiri jiray shaqaale kale oo arrimahaas u xil saaraan oo iyagu qaban jira ama fududeyn jiray way qaateen amarkii beertii ayay aadeen marka wasiirkii koowaad wuxuu ku dadaal sidii uu boqorka u raaligelin lahaa ama uu ugu hagar bixi lahaa wuxuuna bilaabay inuu guro miro aad nadiif u ah oo macaan yacni sidoo kale aan bololin weli aan halaabin ama bahal iyo waxaas aan gelin wuxuuna soo guro miraha qayb kastoo yacni mir macaan oo beerta ku taal oo la cuni karo oo isku jirtay oo nadiif ahayd yacni wuu dadaalay ilaa xad wuuna buuxiyay jawaankii wasiirkii labaad ayaa isna wuxuu isku qanciyay in boqorku uu yacni boqor yahay uusan u baahnayn miro hadda beerta laga soo guray dartiis uusan jawaanka eegi doonin ama aanu fiiri doonin marka isna wuxuu sameeyay wuu isku soo dhex daray wixii ka hor imaada ayuu ku soo riday ama ha fiicnaato ama bolol ha ahaato ama cayriin ha ahaato yacni wax walbo heli kara ayuu jawaankii ka buuxiyay kii saddexaad marka wasiirkii saddexaad isaguna wuxuu isku qanciyay inuusan boqorku fiiri doonin jawaankan mirana uusan u baahnayn darteed wuxuu ka soo buuxiyay caws iyo dhagaxaan iyo qashin iyo wax walba yacni muhiimadiisu inuu jawaanka buuxiyo ayay ahayd maalinkii labaad ayaa la gaaray boqorka ayaa amar wuxuu ku bixiyay in loo keeno 3dii wasiir iyo jawaanadoodii ay soo buuxiyeenba markii la keenay ayaa wuxuu ku amray in 3dooda xabsiga loo taxaabo muddo bil ah wuxuu kaloo amray in mid waliba lagu xiro xabsi kaligiis oo aan qofna booqan karin sidoo kalena jawaankiisii uu soo buuxiyo oo uu soo guro la siiyo si uu sahay iyo saad ugu noqdo sidii ayaana la sameeyay wasiirkii koowaad marka wuxuu ku dhamaystay muddadii bisha ee si raaxo iyo wanaag ay ku dheehan tahay waayo wuxuu intaas uu cunayay oo uu aayay mirihii oo soo guro oo u hagar baxay 3dii bishii cafwan markii muddadii bisha ahayd dhamaatay yacni asagoo gaajo ma aanu arkin iyo wax dhibaato ah muuse arkin mirihiisi ayuu cuni jiray muddadiina way u dhamaatay wasiirkii labaad asagoo wuxuu galay xaalad khatar ah waayo yacni waa ku yaraaday mirihii uu watay intooda badan waxay ahaayeen kuwo qarmuun ama yacni bahalo ay galeen waayo markii uu guraya wuu isku dhex daray ama wuu soo hakraday marka intii wanaagsaneed dhaqsi ayay ka dhamaatay walow uusan heer geeri gaarin haddana xaalad khatar ayuu ku sugnaa muddadii bisha ahayd wasiirkii saddexaad marka isagu baahi ayuu u dhintay inta aysanba muddadii bisha ahayd dhammaanin waayo jawaankiisu waxa uu ka waayo wax uu cuno maadaama uu dhagax iyo wasaq uun kasoo buuxiyo ama qashin haddaba marka adiga wasiirkee tahay tusaalahaasi waa mid ka turjumaya dhabta iyo xaqiiqada u taala qof kasta oo bini'aadam ah oo allana uu siiyey caqli uu ku garto kuna garwaaqsado inuu maanta haysto fursad aan soo noqonaynin waxaa maanta furan shaqo iyo inaad wanaagga ku dadaasho maanta ma jirto cid xisaab kula daba taagani berrina waa xisaab iyo goosasho camal dambe oo la aqbali doonana ma jiro waayo fursaddaas maba helayno eebba agtiisana waxaa taala cadaalad dhammaystiran oo qofna kama baqaayo wax yar oo xumaan ah oo uusan isagu geysanin in loo ciqaabo haddii marka aan isbarbardhig ku sameyno xabsiga wasiirada iyo qabriga waxaa noo soo baxaya kala duwanaantooda oo ah in wasiirada aan loo sheegin in wax ay soo guraan oo iyaga saad ama cunto u noqon doono ama sahay oo aan qof kale la sii doonin halka qofka muslimka ah uu aad u garanayo in maalinta qiyaamaha qof waliba la siin doono wixii uu soo sameeyay oo camal ah ha xumaado ama ha samaado laguna oran doono maalinta qiyaamaha hoo buugga aad soo qortay kani waa buugga aad soo qorto oo la micno ah waa camalkii aad soo samaysay
ama aad soo hormarsatay. Haddaba marka waxaa nala habboon inaan la imaano camal iyo howl aan ku faraxno. Maalinta dadka qaar wejiyadooda ay madoobaanayaan ama madoobaa doonaan, qaar kalena wejiyadooda ay